waxaan isla eegi doonaa oo aan dib u eegis ku samayn doonaa website-kii hore aan ugu soo hadlay oo ahaa metex.com. website-kaas ayaan dib u eegis ku samayn doonaa maadaama ay iga soo codsadeen asxaab badan oo nagu xiran. ugu horreyn waxaan ku geli doonaa abkiisa ayaa inoogu jira mobilkeena oo abka ayaan ku geli doonaa. website-kana waxaa lagu magacaabaa metex.com. website-ka ayaan geli doonaa, waxaan gashan doonaa userkeena iyo passwordka ayaan gashan doonaa. markaan userka iyo passwordka aan gashano kadib qaabkan ayuu soo furmi doonaa. hadda sidaad arkaysaan 10 ruble ayaa ku jira. inta ka horna waxaan ka saarnay 3. hadda laakiin nidaamkooda ay wax ka bedeleen oo 10 ay ka dhigeen. minimum payout-ka waa 10 ay ka dhigeen. marka luqadda aan bedelan doonaa oo English aan ka dhigan doonaa maadaama aan fahmi karin luqadan. sidaas darteed luqadda English aan ka dhigan doonaa. kadib hadeer waxaan isla aadi doonaa meesha ay ku qoran tahay withdraw. halkaas withdraw ay ku qoran tahay ayaan isla aadi doonaa si aan ula baxno lacagtaas 10ka. lacagta waxaan kula bixi doonaa baayir ahaan ayaan kula bixi doonaa. baayirkayga ayaa ku xiran sidaad arkaysaan. hore ayaan muuqaaladii hore ayaan uga soo hadlay sida loogu xiro payment method-ka. halkaas kore ay ku qoran tahay specify the amount to withdraw. halkaas waxaad gelinaysaa lacagta aad rabto inaad la baado. aniga hadda 10 ayaa inoogu jirta. 10kaas ayaan la bixi rabnaa. 10 ayaan gelin doonaa. markaan gelin kadib waxaan kasii dooran doonaa baayir. markaan taabano qaybtan ayuu inoo soo gudbin doonaa. keliya waxaad samaynaysaa xariiqdan oo greenka ama cagaarka. website-kan markaad lacag la bixis aad samaynayso oo qaybtan uu ku keeno xariiqdaas cagaarka ayaad qaban doontaa si aad lacagta ula baxdo ama ay kugu fasaxaan. xariiqda markaad qabato waad qabanaysaa kadibna waxaad u jiidaysaa dhanka midig. sidaad arkaysa halkaas waxaa ku qoran move the slider to the right. u jiid sliderka dhanka midig. marka midigta aad qaabkaas u keenaysaa. markaad keento kadibna payout halkii ku qoran tahay aad taabanaysaa. haddaan idin calaamadeeyo greenka qaabkaas ayaad u jiidaysaa kadib halkaas payout-ka ay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa. payout markaad taabato kadib wax yar ka baadi lacagta way diri doonaan. sidaad arkaysa wuxuu leeyahay the payment of 10 ruble to buyer was successfully made, thank you for your work. lacagtii 10 ruble ahayd baayirkaaga ayaa lagu diray. waad ku mahadsan tahay hawshaada ayuu leeyahay. marka baayirkan sidaan ogsoonahay waa immediately isla markii instant waaye. lacagaha baayirka waa isla markiiba, waa waqti ma lahan. daqiiqadii aad dirta isla daqiiqadaas ay ku soo gaaraysaa. sidaad arkaysaan 10kii hadda waa 0. marka waxaan isla aadi doonaa baayir akoonkeena ayaan isla aadi doonaa si aan u soo hubino in lacagta ayna soo gaartay iyo in kale. lacagta aan dirnay waxay ahayd 10 ruble ay ahayd. 10 ruble maadaama khidmad yar ay ka jaran doonaan laakiin waxaan isla eegi doonaa ama aan isla fiirin doonaa inta lacag oo ayna soo gaadhay. baayirkeena ayaan tegi doonaa ama koodka ayaan gashan doonaa. markaan koodkaan gelino kadib sidaad arkaysaan waxaan aadi doonaa qaybta ruble-ka oo ayaan aadi doonaa. qaybta ruble-ka intaan aadin qaybta history ayaan ku tusi doonaa. qaybta history ayaan aadaynaa. sidaad arkaysaan 9.22 ayaana soo gaadhay. 9.22 oo jajabkaas ayaga markaas ay yeeshteen khidmad ahaan ay u reebteen. sidaad arkaysaan 9.22 ayaana soo gaartay metex.com. website-kaas ayaa noo soo diray. sidaad arkaysaan taariikhda waa 26 bisha Abriil 2024. saacadina waad arkaysaan iyo ID-ga. marka waxaan rajaynayaa in oo markaas muuqaalkan uu wax badan idinku saaciidi doono oo aad ka shaki baxdeen website-kaas. sidiisa banaanba website-kaas wuxuu haystaa rate fiican. Trustpilot-kiisa aad ayuu fiican yahay. mana aha website maalgashi ah. waa website aad lacagta aad ka samaysid aad la bixi kartid. isla markiina ay ku diri doonaan lacagtaada baayir haddii tahay, haddii perfect money tahay iyo web money inta waad kula bixi kartaa. marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan oo aad maaragtay waqti aad gelisaan. waxaadan waqti gelinin lacag kama heli doontid.
intayna muuqaalka mid la mid aynu dib ugu kulmi doonno isma dhaafin.